haddii ay dhacday inaad fariisto kursiga diyaaradda ee xiga daaqadda ee diyaaraddu inay dhex mushaaxayso daruuraha waxaad eegaysaa baalka diyaaradda ruxmaya adigoo laga yaabo inaad isweydiinayso sidee birtaas dhuuban u qaadi kartaa miisaanka boqolaal qof iyo boqolaal tan oo xamuul ah laakiin halkan waa sirta dhabta ah gudaha baalkaas aad eegayso waxaa ku qarsan kumanaan litir oo shidaal ah oo weliba karkaraya diyaaradda Boeing 747 tusaale ahaan waxay qaadi kartaa ilaa 200 oo litir oo shidaal ah dhammaan miisaankaasna wuxuu ku jiraa baalaha diyaaradda maxay injineeradu u doorbideen inay dareere qarxi kale ku kaydiyaan meesha ugu nugul ee diyaaradda waxay ugu kaydin waayeen caloosha diyaaradda jawaabtu ma aha mid sahlan waana mid ka mid ah guulaha ugu waaweyn ee fiisigiska iyo injineernimada hawada bilowgii taariikhda duulista shidaalka waxaa lagu kaydin jiray meel kasta oo bannaan mararka qaarkood waxay ku kaydin jireen kuraasta hoostooda ama meel u dhow matoorka laakiin markii diyaaraduhu noqdeen kuwo waaweyn oo u kala goosha qaaradaha injineeradu waxay kala kulmeen dhibaatada miisaanka diyaarad weyn markay kacayso waxay u baahan tahay xoog kor u qaada oo aad u weyn xooggaas oo dhanna waxaa soo saara baalaha marka ay diyaaradda hawada ku jirto jidhka diyaaradda ee fuselage wuxuu u dhaqmaa sidii miisaan aad u culus oo baalaha hoos u jiidaya halka hawada kor u qaadaysana ay baalaha kor u riixayso tani waxay abuurtay xoog baalaha raba inuu kor u laabo ilaa ay ka jabaan halkaas ayuu shidaalku ka soo gelayaa ciyaarta marka shidaalka lagu shubo baalaha miisaankiisu wuxuu u dhaqmaa sidii broosin ama miisaan ka soo horjeeda xoogga hawada ee kor u riixaya shidaalku wuxuu baalaha hoos ugu cadaadiyaa miisaankiisa taasoo yareysa culayska dhabta ah ee ku dhacaya halka uu baalku ku xirmo jidhka diyaaradda waa nidaam isku dheelitir ah oo caqli badan halkii baalku uu keliya kor u kici lahaa miisaanka shidaalka ayaa ku qasba inuu hoos u dego taasoo ka dhigaysa in baalku uu ahaado mid toosan oo ammaan ah inta lagu jiro duulimaadka laakiin faa'iidada shidaalku intaas kuma eka waxaa jira caqabad kale oo duuliyaashu ka baqaan taas oo la yidhaahdo wing flutter bal qiyaas calin ka taagan meel bannaan oo ay ruuxayaan dabaylo xooggan baalaha diyaaraddu waxay u raxmi karaan sidaas si la mid ah haddii ay aad u fududaadaan ruuxankaas wuxuu horseedi karaa in baalku uu burburo ilbiriqsiyo gudahood in shidaalka lagu shubo baalaha waxay kordhisaa inertial mass ama miisaanka diyaaradda ee iska caabiya dhaqdhaqaaqa degdega ah baalaha culayska shidaalka ku jira uma ruxmaan si fudud taasoo duulimaadka ka dhigta mid deggan oo rakaabka aysan dareemin wax gariir ah haddii aad isweydiinayso dhinaca ammaanka taasna injineeradu way ka fikireen matoorada diyaaradda badankoodu waxay ku xiran yihiin baalaha hoostooda in shidaalku u dhow yahayna matoorka waxay ka dhigan tahay inaan loo baahnayn tuubooyin dhaadheer oo mara jidhka diyaaradda taasoo yareysa khatarta in shidaalku ku dhex daato rakaabka dhexdiisa haddii shil dhaco sidoo kale haddii ay dhacdo in matooradu istaagaan ama bubooyinka shidaalka ay xumaadaan shidaalka baalaha ku jira wuxuu matoorka ugu degi karaa si dabiici ah isagoo isticmaalaya xoogga cufisjiidadka ee gravity haddana waxaa jira siro kale oo ku saabsan sida shidaalka gudaha ugu jiro baalaha diyaaraddu ma ahan kuwo godan oo waaweyn oo biyo-xireenno oo kale ah gudaha waxaa ku yaalla gidaarro yaryar oo daloolo leh oo la yidhaahdo baffles shaqadoodu waa inay ka hortagaan inuu shidaalku hal mar dhinac u wada yaaco marka ay diyaaraddu leexanayso haddii dhammaan shidaalku hal mar hal dhinac u wareego miisaanka diyaaradda ayaa isbeddelaya taasoo ka dhigaysa mid aan la xukumi karin baffleskaas waxay shidaalku ku hayaa meel deggan iyagoo u oggolaanaya inuu si tartiib ah u dhex maro laakiin uusan u dhicin sidii mawjad badweyn oo kale xitaa xilliga cimilada qabowdahay shidaalka baalaha ku jira wuxuu leeyahay door muhiim ah shidaalka loo isticmaalo diyaaradaha ee jet A1 waxaa loo qaabeeyay inuu u adkaysto qabowga laakiin mararka qaarkood wuxuu u dhaqmaa sidii heat sinki oo kale isagoo ka caawiya in nidaamyada kale ee diyaaradda ay qaboobaan baalaha oo leh meel ballaaran oo taabanaysa hawada qabow waxay ka caawinaysaa in shidaalku uu isna qayb ka qaato qaboojinta saliidda matoorka iyo nidaamyada kale ee kululaada sidoo kale waxaa jira sabab aad u fudud oo boos uu qof fariisanayo la xiriirta jidhka diyaaradda waxaa loogu talagalay rakaabka iyo xamuulka boos kasta oo lagu lumiyo taangiyada shidaalka gudaha fuselage-ka waa boos laga qaatay qof safar ah ama boorso baalaha dhinaca kale waa boos ballaaran oo aan la isticmaali jirin injineeradu waxay si fudud u go'aansadeen inay ka faa'iidaystaan meeshan bannaan si ay ugu beddelaan taangi weyn oo shaqooyin badan qabta marka dambe ee diyaarad fuusho eeg baalkaas weyn ee ruxmaya ha u arkin oo keliya bir hawada ku haysa ee waa mashiin adag oo sida kumanaan litir oo tamar ah kaasoo u shaqaynaya sidii miisaan isku dheelitiraya diyaaradda bareeg ka hortegaya ruuxanka iyo sidii keyd shidaal oo ammaan ah waa mid ka mid ah tusaalooyinka ugu quruxda badan ee injineeradu ku guulaysteen inay ka dhigaan wax kasta oo diyaaradda saaran mid leh wax ka badan hal shaqo injineerada hindisay nidaamkan
waxay hubiyeen in xitaa miisaanka shidaalka uu noqdo mid diyaaradda hawada ku sii haya halkii hoos u jiidi lahaa. inaad ogaato sirtan waxay beddelaysaa sidaad u aragto duulista maahano keliya mishiin weyn oo daruuraha dhex maraya ee waa isku xidhnaan maskaxeed oo ka dhex jirta xoogga dabaysha. miisaanka dareeraha ah iyo adkaysiga birta nidaamka la'aantas duulista casriga ah ee aynu naqaano alla ka sokow ma suurtoodeen. haddii aad ka heshay muuqaalkan la wadeeg saaxiibka aan weligiis diyaarad raacin. subscribe-na noo dheh channelka si aad ula socoto muuqaalada xiga ee xiisaha leh. mahadsanid.